maanta waxaa idiin wada libaax lagu magacaabo Bob Jr. Waa libaaxii asagoo dhabarka laga jabiyey oo naftu kasii dhacayso daawanayay gabdhihiisii hortiisa lagu kufsanayo oo lagu boobayo. Waa kuma Bob Jr. Bob Jr. waa libaax ka talin jiray kaynka ugu taala kaymaha Tanzania 7 sano ilaa 7 sano iyo bar baa lagu qiyaasaa. Libaaxan kayntan baryo iyo dhaxal kuma helin, uu u soo dagaalamay ilmaha dhashaha. Hadduu lab yahay wuu cayrin jiray, hadduu dhadig yahayna wuu u joogi jiray sida caadada u ah libaaxyada. Waxaa soo aaday oo soo baxay oo inay soo weeraraan u soo aaday 7 libaax oo walaalo ah kuwaasoo la dhaho Malaysian 7. waxa ay daawadeen qaabka uu u dagaalamayo waa ay fahmi waayeen sababtoo ah Bob Jr. waxa uu ahaa libaax dagaalkiisu zaaid u yahay aan la fahmi karin kuna dagaalama dharbaaxada. Waa ay iskaga laabteen waxa ayna go'aansadeen in aysan ninkan nafsadooda riski aysan u gelin 7dooduba way ka baqeen. 3 ka mid ah waa ay soo laabatay, waxa ay daawadeen qaabka uu dagaalamo muddo badan bay daawanayeen, waa ay fahmeen. Maalinkii dambe 3doodii oo daawanaya mid ka mid ah baa intuu isagoon ayaga la tashan intuu ku soo orday dagaal ku soo qaaday. Waa ay la yaabeen sababta uu sida u sameeyay, lama uusan tashan, lama uusan hadlin. 3dooda liidarkooda ma ahayn walaalkood oo halis ku jira oo Bob Jr. inuu kala jiro ku dhow yahay. Way ku soo ordeen, dib markuu uga baxay way carareen 3doodiiba. labadii walaalaha ahaa waxay u sheegeen inuu halis ku yahay, wayna iska cayriyeen sababtoo ah tala keenana maaha, tala raacana ma aha. Yacni lama tashan ayaga bay ka dhigan tahay. Liidarna ma uusan ahayn, maba aysan jirin sabab dagaal ku qaado. 2doodii waa ay soo laabteen, waxay raadinayeen fursad asagoo ay ka kala daadsan tahay ama dhaawacan ama bahalkii ah. Muddo adigu maalinkii dambe bay waxay arkeen asagoo ay xaaladiisu iska liidato oo ay ka kala daadsan tahay. Waxa ay ku soo qaadeen dagaal, waa ay dagaalameen, dagaal waqti dheer qaatay. Xoogaa markii ay dagaalameen aduu muddo dagaalamayeen, labay ahaayeen, mid baa dhabarka ka jabiyey. Adigu libaaxuna haddii dhabarka laga jabiyo ma uu kici karaa inta badan sababtoo ah lafta dhabarka waa ognahay, qof walba og. Waxa ay sameeyeen sharci khilaafsan sharciyada libaaxyada. Markii ay dileen oo dhabarka ka jabiyeen, yacni waa la sugaa inta naftu ka baxayso. Markay naftu ka baxdo libaaxyada sida caadiga ah sharci waxa u yaala waxay dhib ay u arkayaan oo ayaga boqortooyadooda halis ku keenaya ama way dilaan ama way cayriyaan. Wixii aysan dhib u arkayn oo amarkooda u hoggaansanna way iska daayaan. Marka waxaa soo haray dumarkaa soo haray, dumarka waa la qaybsadaa. Yacni dumarka markaa kule waa libaaxyada dhadig. Andan waxaa dhacday markaa ma aysan samayn sharciga libaaxyadu ay sameeyaan oo ayaga sida caadiga ah. Libaaxii oo naftii kasii dhacayso waxay Bob ku bilaabeen inay kufsadaan gabdhihiisii. Bob Jr. dhabarkaa jaban, naftaasi silaca uga sii baxaysa wuu daawanaya. Waa sababta ah u niri libaaxii cadaaladda u baahnaa. oo ku ogahay halkaana soo gaadhay fiidiyoga wax layga aada saarin, subscribe ma aada saarin, waa kula dareemay sababta way sheekada kugu socotay. Hadda intaas samee, waana ku mahadsan tahay sida aan noo daawanaysay. Mahadsanid walaal.